wafdigan oo hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa kamid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Koonfur Afrika mudane Jamaal Maxamed Barrow iyo sidoo kale qunsulka safaaradda dalkani Koonfur Afrika Master Nabadon iyo xoghayaha joogtada ee golaha shacabka Cabdikariin Buux iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Xukun oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanada Pan Africa waxaana magaalada Cape Town ku soo dhaweeyay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ayaa gudoomiyaha wuxuu gacanta salaan mariyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa oo ay ku jiraan odayaal culimo iyo ganacsato iyo ururada bulshada daahir baasto oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay soo dhaweynta gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari soo dhaweynayna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maanta noogu yimid socdaal gaaban magaalada Cape Town aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa bulshada qaybaheeda gobolkan ku dhaqan oo dhan anagoo magaceeda ku hadlayna mudane gudoomiyaha soo dhawow gudoomiyaha golaha shacabka ayaa banaanka garoonka diyaaradaha kula hadlay dhammaan dadkii soo dhaweeyay wuxuu sheegay inuu u yimid isla markaana uu ogaan doono xaaladda dhabta ay ku nool yihiin Soomaalida ku nool gudaha dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada halkan ku imaanaysa aan su'aalaha qaabsano taasoo aan shaqadeena ay ka mid tahay saddex shaqo sharci matalaadda shacbiga iyo haddii aad ku joogteen xukuumadda matalaadda shacbiga ka mid tahay inaan dhegaysano waxay rabaan waxay leeyihiin dhibaatooyinka ku jiraan iyo ra'yi walaayo wixii shaqada halkaas ka wada insha allah waa suwaraysan doonaa si safiirku ii sheegay in markaa ay jirto kulan waa mas'uulkii ugu darajada sareeyay dowladda Soomaaliya ee maadaam magaalada Cape Town oo raba inuu la hadlo bulshada qaybaheeda kala duwan Abdullahi Farax Nuur Iriso telefishinka caalamiga Somali Cable TV magaalada Cape Town dalka South Africa